dhammaan madaxda sharafta halkan joogta murashaxiinta xilka madaxweynaha sanadkan insha Allah tabaaraka wa taala dhammaantoodna xilal qaran soo haayeen bahda saxaafadda dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waa daljirka dahsoon waa meesha aan rajaynayno biri insha Allah tabaaraka wa taala inuu ka dhaco mudaharaadka nabadeed ee lagu dalbanayo doorashada in la dedejiyo la ilaaliyo sharciga maxay ahaato ummadda Soomaaliyeed dadaalkeedii ay ku bixisay dawladnimada inaan la beerdareynin lagu qaban doono insha Allah tabaaraka wa taala waxaan aad ugu faraxsanahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay runtii fahamsan yihiin qiimiga oo leeyahay mudaharaad nuucaan oo yahay mid mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed taabanaya aan rajaynayno inuu u horseedo xurriyad iyo dawladnimo dhab ah iyo dadka iyo dawladda sharciga ilaalisa biri waa maalin taariikhi ah biidnillaahi tabaaraka wa taala halkan waxaan rajaynaynaa inuu ka dhaco mudaharaad weyn oo runtii gadaashiisa ay dhici doonto maxay ahaato dimuqraadiyaddii dalkan waqtiga dheer oo safka ugu soo jiray inuu si dhaba u gaaro la ilaaliyo sharcigii la soo celiyo kala dambeyntii ayaan rajaynaynaa marka halkan waxaan rabnaa inaan uga dirno shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay ka soo qayb galaan qodobka labaad waxaan rabnaa inaan la hadalno ciidamada amniga waa mahadsantihiin shaqada fiican oo aad haysiin laakiin waxaan rabnaa inaan idin sheegno mudaharaadka waa mudaharaad silmi ah waa mudaharaad nabadeed waa mudaharaad lagu xoojinayo dawladnimada iyo sharciga waa mudaharaad lagu xoojinayo kala dambeynta iyo amniga kama soo horjeediyo amni marka waxaa la idinka rabaa inaadan carqaladayna waxaa tihiin wiilal Soomaaliyeed dawladnimadan maalin baqcidaa soo haysay madaxweynaheena waqtigiisii waa dhammaaday maanta wixii ka dambeeya wuxuu ka mid yahay murashaxiintaas xilka mutaqaana murashaxnimo xilka madaxweynimada u tartamaysa cid oo colaad gaar u qabta ma jirto laakiin waxaan rabnaa sharciga inaan wada ilaalino dadka meeshan jooga xilal waaweyn ee xilal yarar waa ka soo tageen waxaan rabaa inaan iraa kulligooda nin la arkaba madaxweynaha intuu joogay gudoomiye Shariif Xasan aan ka bilaabayaa madaxweynaha waxa uu dhaxay xilligaaga waa dhamaaday Shariif Xasan oo doorasho gal Shariif Xasan waa ogolaasho maayo xataa ma tartamin waa ka tagi soo been qof kastoo maamul goboleed joogay waxa la yiri waqtiga waa ka dhamaado soco madaxweynaha waqtiga waa dhamaaday waxaan rabnaa doorasho in la aado waxa la aaminsan yahay doorashada in adiga caqabad ku tahay doorashada ka hor leexo mudaharaadkan ujeedadiisu waa intaas aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.